Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wanaagsan akhyaarta wada nagala xiriirta halkan waa barta aan YouTube ku leenahay oo aad mar walba nagala socotaan. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa ugu horreeya barnaamijkeena shaqaqada faraha badan ee ka taagan deegaanada Somaliland, taasoo dhibaato fara badan ay ka dhalatay iyadoo hadda la sheegayo in Muuse Biixi Cabdi oo dil u qorsheeyay gudoomiyaha xisbiga wadani ninka loogu magacaabo Xirsi Cali Xaaji, taasoo dadka ay isla dhex marayaan iyadoo la sheegaya in uu Muuse Biixi uu qorsheeyay in si booliiska ninka la yiraahdo dabagale booliiska ku amray in Xirsi Cali Xaaji hawada laga saaro oo la dilo, sababtoo ah wuxuu leeyahay wuxuu dhibaato ku yahay danaheena iyo sida aan anaga wax u rabno. Ninka aad macnaha uga soo horjeedo dowladda Somaliland wuxuu leeyahay waa Xirsi Cali Xaaji. Marka wararkaas way soo tarayaan, waa sirdoon fara badan oo qarsan ayaa banaanka keenaya, laakiin dowladdu ma aysan qarin mana rabto waxaas inay ka hadasho, laakiin aad iyo aad ay isu soo tarayaan aad iyo aad. Wuxuu leeyahay danaha Somaliland iyo dowladda Somaliland waxaa hortaagan ninkaas la yiraahdo Xirsi Cali Xaaji oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani. Dhibaato fara badan ayuu nagu hayaa, shacabkii ayuu kicinaya, ciidamo ayuu diyaarinaya, dhibaato aad u fara badan ayuu nagu hayaa. Marka waa inaan u diyaar garownaa ayuu leeyahay oo dagaal aan la galnaa, dagaal asaga intaan la gelin si assassination ah in asaga loo dilo. Taas ayay qorshaheenu u yahay. Marka ninka la yiraahdo dabagale oo booliiska ugu sarreeya ayaa hadalkaas lagala hadlay, muddo fara badanna ay ka shirayeen, waana hay'adaha sirdoonka ayaa warkaas banaanka keenayo, laakiin waa arrin qarsoon. Dad fara badan ayaa arrintaas ka guban doono oo in qof mas'uul ah ama xisbi ka tirsan in si assassination lagu dilo oo lagu qaarijiyo, taas oo dhibaato fara badan u keeni doonto ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxyaabo aan dadka looga baraninna Soomaalida dhexdeeda ay noqon doonto, sababtoo ah wax hore u dhici jira maaha. Wax mar walba assassination la isku dilo oo qofka siyaasadda kaaga fikirka duwan inaad weerarto ama aad si dadban u disho, taasi sax maaha. Midaas waa midda oo asaga oo dilka loo qorsheeyay Xirsi Cali Xaaji Xasan ninka la yiraahdo, kaasoo asaga ah gudoomiyaha wadani. Haddii marka taas uu asaga dilka qorshihiisa markaan ka gudubno, waxaa kaloo Muuse Biixi Cabdi uu diyaariyay oo qorshihiisa ku jiro inuu asagana dhibaato kale u geysto, taasoo ah in labada maalin ee soo socoto laga jaray internetka deegaanada Somaliland, gaar ahaan xarumaha xisbiyada ay ku sugan yihiin iyo dhaqdhaqaaqooda si uusan u sicin, taasoo isku xirnaan keeni karto oo in dadka ay qadka iyo isku xiriiraan oo banaanbaxyo iyo howlo badan la diyaariyo. Marka waxaa leeyahay laba maalin ay qorsheynayaan mucaaradka inay sameeyaan banaanbaxyo qorsheysan in laga hortago oo aad iyo aad loo dadaalo si aysan u dhicin banaanbaxyadaasi. Taas marka see ku dhici kartaa, ku suuroobi kartaa la isweydiiyey. Waxay ku suuroobi kartaa uu leeyahay waa in kow horta internetka laga jaraa, taasoo qorshaha labaad. Midda hore dilka ninkaas loo qorsheeyay ayuu ahaa, middan waa midda labaad in internetka in laga jaro oo si aysan dhaqdhaqaaq iyo isku xirnaansho iyo taleefanada iyo facebookyada intay iska wacaan isdiyaarsadaan gurubeysiga ay sameeyaan si looga hortago. Taasna waa mid labaad, internetka ayaa laga jarayaa dhammaantood, dhaqdhaqaaqana saas ayaa laisku weynaa. Marka haddii internetka iyo hawada laga bixiyo ama taleefanada la damiyo oo qadka la damiyo, isku xirnaanshaha meesha ka baxayso. Teeda kale waxaa la qorsheeyay in ciidamo fara badan loo diyaariyay oo kuwaasoo ayagana ka hortagi doono haddii lacala ay dhacaan banaanbaxyo fara badan. Muuse Biixi Cabdi waqtigiisa waxaa ka haray wax ka yar 3 bilood, taas sabab looga dhigayo maadaama waqtigii saxda ahaa ee doorashada ay dhici lahayd ay soo dhowdahay. Marka wuxuu aad u diidan yahay in doorashada la qabto, wuxuuna rabaa in waqti dheeraad ku darsado. Dad fara badan ayaa isweydiinayo maxaa waqti ugu darsanaya maadaama waqtigii hadda uu dhow yahay, laakiin waxa uu caddeyn u ah oo daliil u ah inuusan Muuse Biixi doorashada diyaar u ahayn, mucaaradka inuu la dagaalamo diyaar u yahay. Waxaa caddeynayso waqtigii 3 bilood wax ka yar ay ka harsan yihiin ayaana guddigii doorashooyinka ayna diyaarsanayn oona magacaawneen. Marka yaa ka howlgalaya doorashada, yaa diyaarinayo qaabka nidaamkeeda ma jirto. Waxaa kusoo haray axsaabta xisbiyada in la sameeyo waa uu leeyahay maalin walba xisbiye iyo barnaamij uu wadaa. Barnaamijyadaasi xisbiyadaasna waxay noqon kartaa in xisbiyo fara badan oo hadda kadib siyaasadda kusoo biirayo, hadda kadib la qabsanayo siyaasadda, asaga dan gaar ah uu ka leeyahay wuxuu ku xumeynayaa xisbiyadii hore meesha u jiray oo isaga ucid iyo wadani asaga mucaaradku ahaa. Marka qorshihiisa wuu dheer yahay, wuuna ballaaran yahay, in waqtiga u dheeraystana wuu rabaa, laakiin sida hadda waddada uu marayo midii saxda ahayd ma aha. Waxaa la rabay inuu dhaho aniga waqtigan waa igu yaryahay, waqti inaan dheeraystaan rabaa, doorashadana hal sano ha liigu daro si aan doorashada u diyaariyo, xisbiyada iyo guddiyada iyo wax dhan hala magacaabo, saas ayuu rabaa. Marka nimankan way diidan yihiin. Marka Somaliland dadka shacabka iyo dadka dibadaha ku nool iyo kuwa gudaha ku nool intaba eedaynta waxay aad ugu jeedaan Muuse Biixi Cabdi oo aan diyaar u ahayn in doorashadu ay dhacdo sidii la rabay u dhacdo. Taas waa midda labaad. Asaga dadka kasoo horjeedo fikirka duwan wuxuu rabaa inuu weerar
iyo cir iyo dhul ah see noqotaba qaabka uu ku dhibaateyn lahaa inuu ku sameeyo inuu hawada ka saaro ama dhibaato kale u geysto ama qaarkood uu dilo. Qorshahaas waa qorshe dheer oo aad u dheer, dad fara badanna way dhaliilayaan. Taas waa midaas. Haddii aan ka gudubno dhankaas Somaliland aan ka wareegsano aan aadno ninka la yiraahdo Muqdisho iyo dhulkaas haddaan aadno, waxaa la leeyahay ninka la yiraahdo Cumar Finish ayaa wuxuu leeyahay ciyaal weerada waxay ku dhasheen kacdoonkii inta ka dhacday magaalada Muqdisho oo ku saabsanaa doorashooyinka. Nimanka la dhihi jiray Badbaado Qaran ayaa sabab u ahaa. Leeyahay Badbaado Qaran markay imaaday ayay ayagana imaadeen. Marka Badbaado Qaran iyo waa isla socdeen wayna ka hoos dhasheen uu leeyahay. Badbaado Qaran marka ciidamadan waxaana is diyaariyeen dagaalka Maxamed Abdullaahi Farmaajo dowladiisa in la galaan u diyaar garoobeen. Kuwaas ayay sababtaas ayay macnaha kuwan u soo baxeen uu leeyahay. Marka waa nin mas'uul ah gobolka Banaadir gudoomiye ka ah iyo duqa magaalada Muqdisho isla ah inuu hadda maanta dhaho ciyaal weerada si dhiirigeliyo oo sheego meel ay macnaha ka soo abaabulmeen iyo qaabka u shaqeynayaan. Taas asaga naftiisa xataa way dhibaysaa sababta magaalada Muqdisho hadda weli xilka uu hayaa hadduu xilka haynin hadhow xataa way sii dhibaysaa sababta wax sax ma aha. Marka taas dadku waxay leeyihiin waxay dhiirigelin u noqon doontaa ciyaal weerada naftikooda meesha ay ka dhasheen iyo meesha ka abaabulmeen in la sheego ama la buunbuuniyo ayaga xataa farxad ay u tahay. Meesha la dhihi lahaa howlaha amniga ha laga hortago ciidamadan ha soo xareeyaan ciyaal weerada meel hala saaro ummadda shacabka ay dhibaateeyeen. Marka meesha ay ka dhasheen Badbaado Qaran ay ka dhasheen buunbuunin uu ka dhigay. Marka inay ciidamadii ay kala mid yihiin. Ciidamadu waa ciidamo qaran u shaqeeya. Haddii maanta qalad oo jirana ciidamada wixii haddii laga heshiiyeen waa iska tageen dhibkii ma jiraba. Laakiin ciyaal weeradii waxay ka dhasheen kacdoonkii hadday ka dhasheen ma Farmaajo hadda xamar joogo Farmaajo xamar ma dhib ku haya hadda ma ra'iisul wasaare madaxweyne waa maya. Marka dadku waxay isweydiinayaan sababta ciyaal weerada markay dhasheen aan looga howlgelin oo aan gacan bir loogu qabanin. Ciyaal weerada ay dhib ku hayaan shacab kale ku hayaan in askari inta u tagaan waxba kama qaadi karaan. Dad kale oo iska socdo oo hadda CID dadkan nisa ku jiro ma la hadli karaan. Waxay dhibaateynayaan naftooda iyo ayaga shakhsiyan group isku weerarayaan. Teeda kale hadda ani magaalada Muqdisho 2 maalin ku suganahay oo aan safar ku soo gaaray. Labada maalin waxba dhib ma arkin oo meelo inkastoo magaalada aan aad u wareegin oo maanta aan rajeynaa inaan meelaha tago Bakaaraha iyo meelaha kale inaan tagaan rajeynaa oo soo kala ogaado xaaladda soo qiimeeyo meelaha laga sheegay ciyaal weerada dhulkaas inaan soo booqdaan rabaa. Laakiin waxaa la rabaa horta ciyaal weerada ma dadka dhibaato ku hayaan oo shacabka dhibaateeyaan mase dadka kale dhibaateeyaan. Waa shacabka dhibaatada ugu badan shacabka ku hayaan. Marka ninka mas'uulka isku sheegayo oo gobolka Banaadir ku magacaaban qaladka uu ku jiro waxa waaye inuu inta meel soo istaago idaacad ama TV oo soo istaago Universal TV waliba barnaamij wuxuu ku jira live ah ayuu wuxuu leeyahay dadkan waxay ka dhasheen Badbaado Qaran. Okay Badbaado Qaran ay ka dhasheen maxaa gacan bir lagu dhigi waayay iyo dhibaateena hooyooyin Soomaaliyeed ilmo Soomaaliyeed. Cunug hadda maalin dhow xalishiga 14 jir ah oo ciyaal weerada ay sameeyeen 14 jir oo dhalinyarada ka mid ahaa intay isku dhaceen gabar diyaaradda asla saarnayn waxay dhahday cunugaas walaalkay ila dhasho waaye waxaan u soo socotay magaalada Muqdisho waxay dhahday 14 jir ayaa la dilay. 14 jirka waana la sumeeyay sin waa loo ceeji iyo wax inta lagu sameeyay haddana sunna waxa waa lagu daray oo dhintay cunugii. Tacsidii u socoto diyaaradda asla saarnayn wallaahi oo billaahi inaan been sheegin. Marka dhibaatadaas oo kale taa jirto qofka fiir hadda cunugaas wax lagu dilay iyo wax macnaa ma lahan. Marka ninka mas'uul gobolka Banaadir isku sheegay horta Xashi Maxamed waxaan u sheegaynaa inuu ninkaas iska bedelo maadaama safar Uganda uga maqan yahay duqa magaalada Muqdisho in la magacaabo la rabo intuusan wadanka ka bixin laakiin meesha suuro gelin Mungab ayaa la leeyahay duqa magaalada Muqdisho in laga dhiga la yaaba haddii wax isbedeli waayeen asna waa la bedeli doonaa kolba. Marka waxaan leeyahay mas'uuliyiinta iyo dowladnimada Soomaaliya meesha ku jirta saas ma ciyaal weerada in la buunbuuniyo kor loo qaado la sheego ma ciyaal weero aan gacanta lagu dhigaa nin ka daba yimaadana waa in lagu daraa la xiraa sababtoo shacabka Soomaaliyeed dhibaato ku haya. waa ka noolaan lahayn waa ka neefsan lahayn talaab ay ka qaadi lahayn. Hadda magaalada markaa u baxdid ciyaal weerarada waa lagaga sheekeynaa xaaladooda iyo dhibaatadooda. Marka ku mahadsantihiin kheyray barnaamijkeena halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulantadeena dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo.